weligaa mis weydiisay miisaanka sababta kaaga dhici laadahay adigoo isticmaalaya nutrition yani diet adigoo isticmaalaya adigoo isticmaalaya exercise haddaba qofkaas hadaa tahay videogan way ku khusaysaa fadlan video ilaa dhamaad nala daawo waxaan rajeynayaa wax badan inaad ka faa'iidid magacaygu horeen waa Maxamed Cayda halkaad iga daawanaysid waa Maxamed Cayda waxaan soo gudbiyaa mowduuc ku saabsan nutritionka jirdhiska iyo vlogska iyo waxyaalo kale iska baashaale so marka hadalay aan ugu daalinin haddii aad ku cusub tahay channelkayga fadlan subscribe saar like noo saar si dad badan u arkaan gambaleelkana furo commentigan waxa oo fikradaada ka guuxaya noogu soo qor number 1 hadaa bilaabo ma heshid hurdo kugu filan marka ma heshid hurdo kugu filan waqti badan aad aragtay waqti badan aad meel kasta ka maqashaa waqti badan yani wax badan aad aragtay sabab muhiimada ugu weyn jirka bini'aadamka uu isbedelo yani sleep equal repair ay dhahaan formula ay jirto yani hadaa hurdid waxay limid tahay adigoo repair sameynayo so hadii aadan helin hurdo wanaagsan jirka wuxuu soo saaray yani jirka bini'aadamka wuxuu soo saaraa stress hormone wax la dhahayo stress hormonkaas wuxuu maamulaa yani moodkaaga motivationka iyo fearka cabsiga yani markaas hadii hurdo fiican aadan helin meesha waxa imaanayo in halihii la rabo amount ka sare jirkaaga ay soo deyso taas maxay sababay in energy jirkaaga u baahneen inay keediso energygaas loo baahnay markay keediso jirkana waxay isku bedelay fat so that's why hurdada muhiim ay u tahay inaad seexatid ciyob fat si jirkaaga u keedinin haddii aadan seexan xataa haweenkii subaxdii inaad seexatid yani aad dhammaystirid subaxdii haddii haweenkii aad shaqo badan ku yaalo waxa subaxdii inaad dhammaystirin kartid so number 1 halaas waaye number 2 hadaan u gudbo waxaa cuntaa cunto aad u yar yani of course hadaa cuntid cunto badan weight gain aa sameynaya waxaa kasii daran laakiin haddii aa cuntid cunto yar yani waxaa ku fikiray cunto yar haddaan cuno igu maxaa lahaa weight gain manaqanayo weight loss na sameynaa taas oo ku qaldan tahay waxaa ka daran inaa wax badan cuntid inaa wax yar cuntid ka daran sababtoo ah jirkaaga waxaa jirto difaac ay leedahay difaacaas waxay sameynay marka baahi aad ku dishid jirka automatically waxay isku soo deynay in jirka waxay sheegay yani waxay soo saaray qofkan baahi ay u dilooda mesela qofkan marka adiga hadii baahi lagu dilo meel lagu xiro maxaa sameynay si aad cunto ku heli lahayd inaad sameysid jirkaaga marka waxay sameynay cunto kasto way keedinay as a fat ahaan ay keedinay si hadhow ay u isticmaasho marka fatkaas markay keediso jirkaaga marka maxay sameynay markasto weight gain la sameynay weight loss dan habash yani feeling so number 2 waa kaas marka cunto waxaa rabaa cuntid oo balanced oo health food مثلا waxaa la rabaa cuntada inaad ku dartid fiberka يعني cuntooyinka fiber ku badan inaad badsatid for example fiberkan waxay kaa saacidayay in full naqatid markaa cuntid yani baahi kale aysan ku qabanin marka cuntooyinkaasna waxaa ka mid مثلا chia seedska iyo oatska boorashka iyo brown riceka iyo brown pastaha iyo digirta iyo bebeeshada mid kala dhaho waxaasna waxay ku buuxaan fiber ku buuxo so ina cuntada rajayn doona insha Allah number 3 waxaad cuntaa cuntooyin xun marka cuntooyinkaas maxaa ka mid maalin kasta lagama dhaxwaayo McDonald's-ka KFC Burger King bla bla meelaasna ma laga dhaxwaayo macnaha markasta aad joogtaa marka cuntooyinka cunays maxay tahay high calorie waaye so markasta aad tahay naaslinta aratid caloric deficit na naqatid waaye caloric surplus maaha caloric deficit kaas marka sameynaysid cuntada cunaysid iyo energy-ga bixinaysid cuntada cunaysid in yaraato la rabo energy-ga bixinaysid ay badnaato si faatka ay u gubto so cuntooyinkaas inaa kale xajaa loo baahan yahay mar badan waa soo sheegay cuntooyinka saliidda kale cuntooyinka macaanka ku badan kale sababtoo ah insulinkaaga kor u kicinay cuntooyinka oo burgerka iyo chickenka waxaasna kale number 4 ma tihid qof active yani daily life-kaaga active ma tihid مثلا هذا طالكaaga soo qaado يعني qof waxa tahay markaas iska seexo oo guriga hooshiisa aadan qaban xataa gabar tahay hada wiil aad tahayna qaba si daran horta qowl ma qabanaysiin ma shaqaysid iskool ma dhigitid waa iska joogtaa so waxa la rabaa exercise inaad sameysid exercise awoodin shaqo kale kaaga badan
in socodka aad badisid socodkana maxaa waaye tartiib iska jees maaha socod oo wadnaha garaactamaayo neefka baxaya loo baahan yahay oo socod caadi isbeed inaad socotid socod iska rucleen mal rabo marka exercise kana ku dartid muhiim waaye sababtoo ah more calories inaad gubtid la rabaa so daily life kaaga active aan noqotid loo baahan yahay khaladka farada sameynayso midaas inaad active aadan ahayn khaladka shanaad ma cabtid biyo badan biyo kugu filan ma cabtid okay maanta meeqa biyo u baahanaa is leedahay okay maanta 3 litir oo kala u baahan tahay hadaa cabtid maanta oo dhan nus litir okay jirkaaga maxaa sameeyay marka wax aad sameeyay ma lahan wax yani jirkaaga ku soo kordhis ma lahan haddii biyaha jirkaaga ku yareysid waxay la mid tahay adigoo baawur wadaaya baawurkii aad ku shubtay shidaal yaris adigoo wadada dhex maraaya inaa meeshii aad ku kala goodid maxaa sabab marka adaa ku sababay marka jirkaaga haddii biyo fiican aad siin weysay yani jirkaaga biyo fiican markuu helo processing wuxuu sameeynaa in faatkaaga ay gubato يعني وحاسن شخص وقوانه شذلك أسوق شخينا بيها واي سو بيها بدن إن عبت تسكودي سي جركة هتا مخاركة وسوق روح بدنانه فات كاريدي يعني واحد بدن أو فائد بدن اللي هذا هاي هذا ماشان سوقه بيجري سو بيها مركز تنا يعني ولا شيء أوكي نمبر كشناد ماشى أو بحي نمبر كل حد وكان مهم سن معلنكaaga wuxuu ku qoro ama waxa uu schedule kugu sii maraacid yani cheatna ku sameeysaa waa khayanta aad nafta khayanta macalin ma khayanta laakiin aad naftaada ku khayanta okay way lacag u dhiibtay way oo bucket au gadatay oo yani waxa uu gadatay in noloshaada waxa iska bedeshay jirkaaga aad qurxisid so way hadii oo wixii macalinku ku sii aad ku dhaqmeenin maxaa kharashkayga bixisay waqtiskayga bixisay ma iska dhaafid marka waxa loo baahan yahay qaabka macalinku ku qoray wax kasto ina u raacid هذا exercise نخطو سيدنا وسميسيت هذا عنت نخطو هلا عنت أكو قري هلا كولس أكو قري هلا بروتين أكو قري نا عنتي هذا كبدنين سو حارجينا كاسنا راعدين نمبر تضبط واحد عنتا واحد سكر بدن يعني واسك أجنها جبدها مثلا وحيجي علي شوكولاتة عنان وحام خلت بدن ويدها أنا نوتيلا وأركتين وحاكو جرو بكير ساسوين خاندا وسو خادنا qaandadaas ku cunaa waan dhameynaa hal mar aan dhameynaa xataa ma aha kiskis maalin xataa so ma xafili kartaa meeshan uu soo baxay yani aad u weynaanay qasab waay insulinkaagana kor uu kaca maradu insulinkaaga kor uu kaco body building hadaa noqotid yani weight gain hadaa sameynayso weight loss hadaa sameynayso labada bax ma ku tarayso sokorta ina iska dhaaftid waay number 8 borotiinka hoos u dhigtaa borotiin fiican ma cuntid okay borotiin markaan ka hadlaa borotiin shake waxas maaha borotiinka cuntada ku jirto sida ukunta doorada malaayga hilibka يعني ما بتستيت واسكا يريسا اي waxaa badisa kaloriska sidaad anaga aan sameeyno Soomaalideena saxanka waa kana bariiska badan wixii nafaqadiya yar marka maxaa la rabaa kaas inaad badishid 75% waxaa la rabaa marka weight loss aad tahay inay noqoto khudaar taasna u badato halaha kala soo hartay bariis yar ama haday noqoto bariiska oo brown ka ah iyo dooradii inaad badisatid يعني waxaa jirto halaha oo maalinta aad u baahan tahay daily life ka proteinka cabiraysid yani hadaarti insha Allah waan soo sameeyay doona proteinka halaha u baahan tahay maalintii inaad cuntid kaloriga u baahan tahay maalintii inaad cuntid waxaas dhan wax qaab u baaraysaa jirto hadii macalin aqoontina ka wasi fiican asa schedule ku saxaayo so hadii reality ka tahay ina weight loss aad sameeysid aniga halkan ku joogo numberkayga ama Instagramkayga waa kana meeshaan waad soo xiriiri kartaa qaab fudud oo wixii ku hawaysan schedule fiican ah exercise hadee noqoto nutrition hadee noqoto so insha Allah hadii run ay ka tahay waa soo gali kartaa meeshaan iska soo diiwaan gali asxaabta kale ku soo biir hadda dad badan wada ayagana horumarku way ku dhow yihiin adigana ku soo biir hadii aad dhehaysidna kharashkaas ma haysti macalin saan waaye yani waxaad ku sharxaa ka faa'iideyso خلاص ku dhaqan insha Allah marka video halaana idinku talagalay هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.